marka saxaabada rasuulka radiyallahu canhum nicmadan maanta inagu aan haysanay islaamnimada aan ku abtirsanayno ajdaad awowyaasha kulligood wada islaam ay ahaayeen asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nicmada maysan helin waxa uu nebigu maalin qabuuraha nebigu intuu ziyaartay ayuu nebigu dadkii qabuuraha ku jiray u duceeyey saxaabadii la socotay buu nebigu daymoodo wuxuu ku yidhi waxaan jeclaan lahaa walaalahay inaan arki lahaa markaasay saxaabadu yidhahdeen annaku walaalaha ma nihin miyaa markaa buu nebigu yihi may ininku asxaabtaydii baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doonaa iyagoon anigay arkinna way rumayn doonaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadu nebiga ku yidhaahdeen yaa rasuul allah adiguna maad soo gaadhin ayakuna kumay soo gaadhina maalinka qiyaamaha sead isku garan doontaan baa nebiga lagu yidhi markaa buu nebigu yihi meelihii jidhkooga weysada biyaha ay ka gaadhsiinayeen oo cad oo iftiimaysay imanayaan halkaasaan ku garanayaa buu nebigu yihi ummaddayda calaamadaasaan ku garanayaa marka uu noo duceeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wakiilaha tuubaa liman ra'aanii wa aamana bi qofka aniga ay arkay ee i aaminayna hal mar buu nebigu yihi tuuba waa maxay waa janno weeyaan ama waa war bishaaro nebigu u sheegay uu liibaanay buu yihi qofkaasi qofka aniga ay arkay i rumeeyey hal mar buu nebigu yihi qofkaasi uu liibaanay ama qofkaasi jannuu leeyahay buu nebigu yidhi laakiin 7 jeer buu nebigu yihi tuuba ثم طوبى 7 jeer buu nebigu yihi liman aamana bi walam yaranii qofka aniga i rumeeyey isagoo i arkinna 7 jeer buu nebigu yihi qofkaasi uu liibaanay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii wa akhawaatii walaalayaal dhammaantiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystay waxaa la doonayaa inay diinta islaamku wax walbay nagala weynaato oo diinta islaamku ayna naga noqon sheegashe ay diinta islaamku naga noqoto maaragtaane camal fal qofka mu'minku been ma sheego mu'minku fula ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi mu'minku bakhayl ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu nebigu yihi sallallahu alayhi wasallam mu'minku been ma sheegi kara buu nebigu yihi mu'minku been waad ogtihiin zamankana beenta waxay noqotay ilbaxnimo ree magaalnimo mu'minku been ma sheega buu nebigu yihi mu'minku beenta iyo iimaanku isma galaan labadaasi isma galaan haddaad ballan qaadaan ciddaad ballanka u qaadeen u buuxiya buu nebigu yidhi haddii ammaano laynii dhiibtana ammaanada ilaaliya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam 3 ummaduhu way ku jiraan 3na ummaduhu way ku dumaan baa la yidhi 3 khasladood 3 sifa haddii ummad meel degan laga helo ummaddaasi way riiq dheeraataa way barakowdaa horumar bay gaadhaa nabad bay helaan cadaalad bay helaan cizi bay helaan 3 arrimood haddii ummad laga helo haddii madaxdeeda laga helo oo dhallinyaradooda laga helo oo odayadooda laga helo oo haweenkooga laga helo oo ubadkooga laga helo oo cuqaashooda laga helo oo salaadiintooda laga helo 3 haddii ummad laga helo ummaddaasi way jiri ummaddaasi wayna riiq dheeraana way barakoobi ammaanada waa inaan ilaalinaa cadaalad waa inaan ku ilaalinaa cadaalad facdilu walow kaana daa qurba baa ilaahay cadaalad sameeya walow qaraabadiinaba ha noqotee gabadh reer madiina ayaa cahdigii nebiga sal allahu alayh wasalam ayaa dembi bay gashay ku dhacday xadka ayaa la marinayaa markaasay saxaabadu yidhaahdeen gabadha xadka ha laga dhaafay waa gabadh shariifade ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nebigu dadka saxaabada wuxuu ugu jecel yahay usaama binu zayd buu ugu jecel yahe usaamaha loo diro usaama ha u sheega buu yidhi ayaa la yidhi markaasuu usaama binu zayd baa nebiga u yimid sal allahu alay wasalam deedna markaanuu nebiga u sheegay markaasuu nebiga wejigiisii baa bedelmay atashfacu yaa usaama ma waxaad erge u tahay xad xuduudda ilaahay ka mida in la mariyo ayaad adiguna erge uga taho gabadha xadka in laga dhaafo miyaad rabtaa markaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ummadihii inaga horreeyey wixii lagu halaagay baa nin sheegi kooga daciifkaa haddii uu dembi galana xadkay ka jarayeen oo way marinayeen kooga maaragtaane shariifkana way ka dhaafayeen wallaahi baa ku dhaartee buu nebigu yidhi faaduma bintu muxamed hadday wax haddo ilaahay kamaba yeelin kamana yeelee gacantaan goyn lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saasaa nebigeennu xuduudda bini aadamka iyo cadaaladda u ilaalinayay qofka muslimka waa inuu ahaadaa qof cadaalad samaynaya ayaad cadaaladda u samaynaysaa ubadkaaga cadaaladda u samayba shareecaddu ku leedahay
haddaad laba xaas aad leedahay reerahaaga cadaaladda u ilaali. nin baa nebigu u yimid oo ku yidhi yaa rasuul allah ilmahaygii faraskaa isaga ayaa ku deeqoo siiyey. markaa buu nebigu ku yidhi inamadaadoo dhan faraskaa iyakana mid midma u wada siisay. markaasuu yidhi maye isaga ayaan jecelaho waan u gartoo waan siiyey. markaa buu nebigu yidhi anigu cadaalad darro markhaati ka noqoni maayo, ama wada sii ama ka wada daa buu rasuulku yidhi. xuquuq waa gooni, cishqiga jacaylkuna waa gooni. camar binu caas saxaabigii la odhan jiray ayaa majmac ay asxaabadu fadhiyaan buu ka dhex yidhi nebi maxamed saxaabada anuu iigu jecel yahay. markaasaa lagu yidhi may ha degdegin baa lagu yidhi camarow, may anuu nebigu dadka iigu jecel yahay, maya ka daa iwaan weydiinaya waad arki doontaa. salaaddii markii laga baxay nebigu ummadda calayhi salatu salaam wacdinaya ayuu camar binu caas gacanta taagay. yaa rasuulallah su-aal baan qabaa, su-aashaasi waa maxay? dadka ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg. markaa buu nebigu yihi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi. ma aha jacaylku, cishqigu waa gooni, xuquuqda in la ilaaliyana waa gooni. waa la weydiiyey nebiga dadka ayaad ugu jeceshahay? caaishaan ugu jecelahay buu rasuulku yidhi. markaa buu camar u xishoodo wuxuu yidhi xaasaskaaga ma aha, raggaa ka hadlayaa saxaabadaada. markaasuu nebigu yidhi aabbaheed baan ugu jecelahay. markaasuu yidhi haddana cumar binu khadaab buu nebigu yidhi halkaa markaan maraya saddexdii qof ee u horraysa aan iska waayey ayaan iska aamuso waxaan ka baqa inaan noqdo qofka ugu dambaysu nebigu saxaabada ugu jecel yahay. jacaylku waa cishqigu waa gooni, laakiin xuquuqda in la ilaaliyana waa baab gooniya. lidaalika xaasaskeenna xuquuqdooda waan ilaalinaynaa, ubadkooga xuquuqdooda si midaataan u ilaalinaynaa, u kala eexani mayno. mas-uuliyadda ummadeedeed hayso intay dooniba ha noqotee waa inaad u cadaalad samaysaa. saddex khasladood oo khisaalkan aan soo sheegnay ka soo hor jeeda hadday ummaduhu la yimaadaan ee ku dhaqmaan, ummaduhu saddexdaana way ku dumaan. dulmiga iyo khiyaanada iyo beenta. nin boqora ayaa jiri jiray, qasri buu dhistay, qasri muddo dhan baa qasrigaa la dhisaayey. maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi waan dhammayna kaale naga guddoon. jidka uu sii marayey ee qasrigiisa loo marayey aqal yaroo cariishoo buula ayaa ka dhisan, cariish baa ka dhisan. boqorkii baa yidhi aqalkan ayaa leh, waxaa la yidhi islaan duqa ayaa leh, yaslaan duqa ayaa leh. wuxuu aqalkan aqalkaygu iga bahdile cagaf mariyoo qaada buu yidhi, gebigiisaba buur ka tuura buu yidhi. islaantii duqda ahayd ma joogto, way timidday, galabtii bay timidday. meeshii waxay arkeen waddaa laga dhigay meeshii. markaasay xaggan ka wareegtay, way weyday aqalkeedii. xagganay u wareegtay, way weyday. wax xataa qorye iyo wax ka hadhay way weyday. askar baa u timid oo waxaa lagu yidhi ka dhaqaaq meesha eeyaa. markaabay tidhi maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay? maya dhulka lama rogino, dhulku waa sax weeyaane xaa kaa maqan sheega baa lagu yidhi. markaabay tidhi aqal cariishoo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday, maad aragteen? waxaa la yidhi waad war laadahay, saaka waa lagu waayey. boqorkii baa yimid oo yidhi aqalkaygiibu fool xumeeye, qaada oo maaragtaane kala tuura. beedna waa la qaado buurtaasaa laga tuuray aqalkaagii. oo islaan miskiinada oo da-weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. anaa dulmiga iska xarimay baa ilaahay yidhi. ilaaha khaaliqe ee rasaaqa ayaa ku idhi addoommahayga ma dulminayo, dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeele ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi. yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey, maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tidhi. duco badan may ducaynin, erayadaasay ku ducaysatay, laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo. waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tihi markii xoolahayga sidaa loo galaayey, aqalkayga marka buurta laga tuuraayey adu miyaanad joogin? sawdigii yidhi ma anigaa dulmiga iska xarimay, misee lay dulma adu maanad joogin? ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil, waa muntaqim, oo u arguda addoomihiisa ilaahay. dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sana la dhisaayey, dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana buurta uu ilaahay gadaashiisa ka tuuray. lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan. ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana ummaddaasi way duntaa. hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana ummaddaasi way riiq dheeraataay, way barakowdaa, wayna jirtaa. muslimiintu walaalayaal, haddii mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin waa shahaadanaya, waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa.
diinteena islaamka waa inaan isku qadarinaa diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa xuquuqda jaarka waa saddex bay culimmadu yidhahdeen jaar xaq keli uu leeyahay jaar laba xaq buu leeyahay jaar saddex xaq buu kugu leeyahay jaarka xaqa keliya kugu le waa jaarkee waa jaarka gaalka qof gaala daristii ka soo qaad isku diin ma tihiin waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali cabdillaahi bn cumar bn khadaab radia allahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudiya ayuu ahaa cabdillaahi markuu ka yimaado masaajidka reerkiisa wuxuu ku odhan jiray cuntada aad kariseen jaarkeen wax mauga geyseen buu odhan jiray bal firs waa yahuudi nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa halayga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa waa 120 kun oo dirham buu yidhi markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun boqolka xageed ka keentaa lagu yidhi boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa 20 laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisaan 100 kun ku iibinayaa buu yidhi waana kuma sheekhaasi waa cabdullaahi bnu mubaarak allah u naxariiste qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan tani waa addoontii kani waa addoonkii ha odhanine kani waa bani aadamo ilaahay baa karaameeyey adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay inaad isagana aad u dabqato ood u bandhigtaa diinta islaamka xilka diintuna inuu wada saaran yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac ula dardaarmay nebigu ummadiisa dardaaranadiisi waxaa ka mid ahay aniga nebigama dambeeyo innakana ummad inagama dambayso kaa maanta shaahida ila joogow kiina maqangaadhsii buu rasuulku yidhi raggii markaa nebiga la joogay baa isxil qaaday way qaadeen oo risaaladan iyaka ina soo gaadhsiiyey diintu zaman walba dad bay leedahay oo u kaca zamankana xilkii diineed inaguuna saaran yahay haweenka xil diineed baa saaran odayada xil diineed baa saaran dhalinyarada xil diineed baa saaran gabdhaheena dhalinyarta xil diineed baa saaran marka diinta aan ka shaqayni weynay waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhalinyaradu dad kale ay ku daydaan oo dhaqan dad kale aan qaadanno oo caqli dad kale ay leeyihiin aan ku soconno maxaa keenay in layna bedilo maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay doonayba ha joogaane waa layna bedelay waa layna saameeyey maxaa laguu saameeyey dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli adigu laakiin haddaad dadaali lahayd xaqa adigu aad waddaa ummadda kala gaari lahaa naftayda iyo lafihiinnaba waxaan ugu nasteexaynayaa inaan diinta dadaalkeyga aan u kacno oo aan culummada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine haweenkeenna dhallinyaradeenna madaxdeenna mijaheenna caamadeenna culimmadeenna tujaarteenna fuqaradeenna inaan diinta dadaalkeyga gacmaha isku qabsanno oo nidhaahno wactasimuu bixabli illaahi jamiican inaan sidaa diinteena u wada kacno insha allah wada diyaar garooba insha allah soo diyaar ma nihin insha allah